higsiga dawladda Soomaaliya ay ka leedahay ciidamadeeda booliska waa in la abuuro adeeg booliis oo awood leh isla markaasna haybad iyo sharaf leh kuwaas oo hubin doona dhowrista ammaanka dadka iyo bulshada sidaa daraaddeed dawladda federaalka ah dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah ee Puntland, Jubbaland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa sanadkii la soo dhaafay isku afgartay nidaamka cusub ee howlgelinta booliska sida ku xusan habkani cusub ciidamada booliska Soomaaliyeed waxay noqon doonaan booliska federaalka ah ee Soomaaliya halka dawladaha xubnaha ka ah federaalkana ay yeelan doonaan ciidamo boolis ah oo iyaga gaar u ah booliska federaalka ah iyo booliska dawladaha xubnaha ka ah federaalka waxay maalgelin doonaan hawlahooda magacaabi doonaan taliyaashooda booliska waxay sidoo kale samayn doonaan qorshayaasha booliskooda hase yeeshee guusha habkani cusub ee howlgelinta booliska waxaa lagu cabirayaa kalsoonida ay bulshadu ku qabaan ciidanka booliska tayada adeegyada ay fidiyaan yaraynta falal dambiyeedyada xagjirnimada ee heer maamul goboleed iyo heer federaal sidaa daraaddeed halka booliska dawladaha xubnaha ka ah federaalka ay safka koowaad kaga jiraan howlaha sugidda ammaanka ee booliska iyagoo u maraya amni dhowris bulsho iyo gaafmeer muuqda ciidamada booliska federaalka ah waxay qabanayaan waajibaadyo gaar ah sida sugidda ammaanka xuduudaha wax ka qabashada falal dambiyeedyada abaabulan iyo xaqiijinta inay xiriir wanaagsan la leeyihiin booliska caalamka halka booliska federaalka ah iyo kan dawladaha xubnaha ka ah federaalka ay yeelan doonaan unugyo wareega oo si degdega u howlgala oo loo yaqaano daraawiishta booliska dawladaha xubnaha ka ah federaalka wuxuu yeelan doonaa unugyo loogu talagalay xakamaynta rabshadaha oo loo yaqaano birmadka booliska labada heer waxaa dhex mari doona wada shaqayn iyagoo isdhaafsanaya macluumaadka waxaana ay samayn doonaan isku duwid iyo wada shaqayn ku aadan howl maalmeedkooda waxa ay xiran doonaan lebis isku mid ah oo leh astaan mid ah laakiin ku kala duwan calaamadaha tirada booliska federaalka ah iyo kan dawladaha xubnaha ka ah federaalka waxay wadar ahaan gaari doonaan 32,000 oo ciidamo booliis ah ha yeeshee waxaa weli laga wada hadlayaa sida dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah federaalka ay u qaybsanayaan ciidamada booliska guddiga farsamada ee heer gobol ayaa horay ugu kulmay Puntland, Jubbaland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug guddi farsamo oo wadajir ah oo metelaya booliska federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa dawladaha xubnaha ka ah federaalka ayaa horay ugu kulmay magaalada Muqdisho waxayna bil kasta ku kulmi doonaan gobollada kala duwan waxaa weli laga shaqaynayaa diyaarinta nidaamka cusub ee howlgelinta booliska iyo in loo tarjumo hab sharciyeed heer federaal iyo heer gobolba booliska qaramada midoobay iyo saraakiisha booliska AMISOM ayaa tababar bixinaya si ay gacan uga geystaan nidaamka cusub ee howlgelinta booliska AMISOMna waxay bilowday qorista iyo tababaridda dadka ka mid noqon doona booliska heer dawlad goboleed tani waxay gacan ka geysanaysaa kor u qaadista awoodda saraakiisha booliska Soomaaliyeed si ay u sugaan ammaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed